maamulka isbitaalka dhexe magaalada Laascaanood ayaa soo dhaweeyay dayactir iyo qalab ay soo gaarsiiyeen isbitaalka dalada horumarinta bulshada ee gobolka Sool oo ka kooban ardayda jaamacadda Nugaal macadka caafimaadka macadka diiniga ganacsato iyo cilmiyeediin kuwaas oo waxqabad weyn ka sameeyay qaybo ka mid ah isbitaalka isla markaana dayactiray qaybta degdega caafimaadka idoo sidoo kale furshaanta bukaanka u dayactiray isla markaana taangi biyood dhigay qaybta meydka waxaana kormeer ku tagay isbitaalka xubno ka mid ah daladaasi oo uu kuurgalaya xaaladda isbitaalka Laascaanood ee baahiyaha ka jira waxaana kulan saacada qaatay wada yeesheen maamulka isbitaalka Laascaanood halkaas oo maamulka dalada horumarinta bulshada gobolka Sool ay ka hadleen siday u haboon tahay in wax loo qabto isbitaalka Laascaanood aysan jirin hay'ad ka howlgasha agaasimaha isbitaalka Laascaanood Ismaaciil Muuse Ciise iyo Dr. Cabdi Maxamed Buraale ayaa wax lagu faano ku tilmaamay leeradan isabaabushay diyaarkana u ah inay dadkooda wax u qabtaan ganacsade Cabdiqani oo daahir ayaa dhankiisa ku buuriyay dalada horumarinta bulshada ee gobolka Sool inay ku dhiiradaan sidii ay baahiyaha badan ee ka jira isbitaalka ay qayb weyn uga qaadan lahaayeen وأنا سود ويني نحن تقدم في سود ويني وحول قاد وطني كدمي أدي أركون عندنا وطن أدي أدم في سود ويني وحيد حساسي بمهي نحن شدود الله كنتي وحي رأيك أسوتها ووجود غير إلى مصوبا منه فهم وي يعني قدرنا وأن بالشدة هذا Laascaanood قدرنا أما بالشدة ديجانك دنت الجهود إلا ما وصل يعني كنتي وقتين على أساسك أو أكمل عاقبات كسر بنادم وجودها هي لما يردهم ستة كيدناها بالشدة وحيابات بدن بيوقفتين دب غرمة بيجارسيان إسبتالكي ما هذا قارئ أيه هيستان أيه كانن أو دحول مرها إسحاقان كودي فكانوا بالشدة دحجنا ووح أي أمور كنت بيوشنا ويان عبد الرحمن